Asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada waxaan idinka codsanaa in aad follow noo saartaan page-ka iyo like. Muuqaalkan waxaan uga hadlayaa kulan ka caawa u dhexeeyo labada kooxood oo kala ah Arsenal iyo Manchester United waxaana ku soo bandhigi doonaa kulamadii ay soo wada ciyaareen iyo guulaha ay kala gaareen. Haddaba ku soo dhowaada muuqaalka xaqiisana siiya mahadsanidin. Ciyaartan xiisaha iyo xamaasadda leh waxa ay soo galaysaa 1 saac iyo bar Geeska Afrika. Waana kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Arsenal ayaa gurigeeda ku soo dhoweyn doonto Manchester United. Garsooraha ciyaarta waa Anthony Taylor. Marka la eego guud ahaan kulamada Premier League, waxaa guul badan Manchester United. 61 ciyaar oo ay ciyaareen. Manchester United ayaa badisay 26 ciyaar halka Arsenal ay adkaatay 17 ciyaar 18 ciyaarna barbaro ayay ku dhammaatay. 7 ciyaar ee ugu dambeeyay oo lagu ciyaaray guriga Arsenal 5 ka mid ah waxaa adkaatay Arsenal 1 ciyaarna Manchester United ayaa adkaatay 1 kulan barbaro ayay ku dhammaatay. Arsenal shabaqa ayay gaartay ciyaar kasta xilli ciyaareedkan marka laga reebo kulankii Newcastle. Arsenal guul darada keliya ee soo wajahday xilli ciyaareedkan waxa ay kala kulantay Manchester United. 5tii ciyaarood ee ugu dambeeyay oo ay Arsenal ciyaartay 4 ka mid ah waa adkaatay, mid ka kale na barbaro ayay gashay. Sidaas si la mid ah 5tii ciyaar ee ugu dambeeyay oo ay Manchester United ciyaartay 4 waa badisay, midna barbaro ayay gashay. Ciyaaryahanka ugu badan ee ka soo muuqday kulankan waa Ryan Giggs. Ciyaaryahanka goolasha ugu badan ka dhaliyay kulankan waa Rooney. Guushii ugu weyneed kulankan waxaa gaartay Manchester United oo 8-2 uga badisay Arsenal sanadkii 2011. Waa ku mahadsantahay hadda intaa nala soo gaartay.